ciidamada Puntland oo rasaasay dad banaanbax ka dhigayay magaalada Boosaaso. Dagaal khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay koonfurta gobolka Hiiraan iyo askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo lagu laayay dalka Mali. Akhbaaraadkaasi iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaad warkeena ku daawan doontaan hase ahaatee daawado haddii ay tahay marka kugu horeysa booqashada halkan. fadlan like saar muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada page-kan follow iyo like ku riix. Waxay noo tahay dhiirigelin share garay muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo sidaas oo kale u wanaagsan. Mahadsanid. ugu horreyn warkana aynu ku bilaabnay ciidamada Puntland oo rasaasay dad banaanbax ka dhigayay magaalada Boosaaso. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta rasaasay dad shacab ah oo banaanbax kaga hordhigayay xubno ka tirsan guddiga ku meel gaarka ah ee doorashada oo ay xukuumaddu u dirtay magaalada Boosaaso si u soo qiimeeyaan goobaha lagu qabanayo doorashada. dadkan ayaa ka soo horjeeda qorshaha xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ee ah in 12 degmo lagu qabto doorasho qof iyo cod ah, taasi oo siyaasiyiinta doorashada kula tartamaya madaxweynaha Puntland ay sheegeen in uu kaga gol leeyahay madaxweynaha muddo kororsi hor leh. lama oga khasaaraha shacabka ka soo gaaray rasaasta lagu furay, waxaana xaalad kacsanaana maanta laga dareemayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dhacdadan ayaa imaanaysa xilli magaalada Garowe ay ka joogaan wafdi heer caalami ah oo ka socda beesha caalamka, sidoo kalena dhowaan maleeshiyaad hubeysan ay si xooga kula wareegeen agab loogu talagalay doorashada maamul goboleedka Puntland. dhinaca kale, dagaal khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay koonfurta gobolka Hiiraan. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Hiiraan ka oo u dhaxeeya ciidamada macawiisleyda iyo xubno ka tirsan xoogag hubeysan ee Al-Shabaab. dagaalkan ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac, waxaana si gaar ah uu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Xalfooy oo ku yaala koonfurta gobolka Hiiraan. dagaalkan ayaa yimi kadib markii sida la sheegay ciidamada macawiisleyda ay wadada u galeen gaari nooca cabdibilaha loo yaqaano ay Al-Shabaab wateen, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in ciidamada macawiisleyda ay gubeen gaarigii ay Al-Shabaab wateen. sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ayaa la sheegayaa inay khasaare gaarsiiyeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee ay wadada u galeen. wararkaasi kadib wararkii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in deegaanka laga dareemayo saansaan dagaal, waxaana labada dhinac ay wadaan diyaargarow xoogan oo ku aadan dagaal ay mar kale fooda isu daraan. heesta kale, militariga Itoobiya oo gudaha u galay magaalada muhiimka ah ee Shire. ciidamada federaalka ee Itoobiya iyo xulafadooda ayaa gudaha u galay magaalada muhiimka ah ee ku yaala Tigray ee Shire, waana guul muhiim oo ay gaareen tan iyo dagaalkii dib u bilowday halkaasi oo bishii Agoosto kadib xabad joojin 5 bilood socotay. ciidamada falaagada Tigray ayaa arrintan ku tilmaamay tallaabo ku meel gaar ah, waxa ayna wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan duulaankooda ku aadan dowladda federaalka Itoobiya. Shire waa magaalo weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan 100,000 oo qof. magaaladan waxaa u dhow magaalooyin kale oo taariikhi ah oo ay markaasi Axum iyo Adwa. markii uu dagaalkan ka bilowday Tigray bishii November sanadii 2020, magaaladan waxaa ku soo qarxay 10,000 oo qof oo ka soo cararay dagaalka gudaha Tigray. gabagabada warkeena, askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo lagu laayay dalka Mali. 3 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo na dhashay dalka Chad ayaa la dilay dhinaca waqooyi ee dalka Mali kadib markii ay ku qaraxday miino wadada dhinaceeda lagu aasay. tiro kale oo ka mid ah ciidamada ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. dhimashada askartan ayaa ku soo beegmaysa hal maalin ka hor inta aanu golaha ammaanka ee qaramada midoobay shir gaar ah ka yeelan howlgalka Mali, ka oo ah howlgalkii ugu khataraha badnaa ee qaramada midoobay hogaamiso xitaa ka hor intaanay ciidamada Faransiisku ka bixin dalka Mali. afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Stéphane Dujarric ayaa sheegay in 3 askari oo kale oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta inay si xun u dhaawacmeen, kuwaasi oo lagu daweynayo isbitaallo ay leeyihiin qaramada midoobay. goobta miinada ay kula kacday ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa ilaa hadda 10 kiiloomitir u jirta magaalada Tizilid ee gobolka Kidal. kooxaha Islaamiyiinta ayaana gobolkan saameyn ku leh iyaga oo walxaha qarxa meelahaasi ku aasa. saaxiibada qiimiga badan halka ayaan ku soo afmeerana warkii oo aad kala socoteen Native Somali TV.
warkaan igu jumuune ayaa akhrinayay tan iyo warkaan kiisa xiga noola kulante nabadgelyo.